haddaad maqli jirteen warqad furan oo madaxweynaha ku socota waxaa laga baxwati waa gadhood dhexda lagu qabtay namadii raacid laga yeedhiyay aanu da kuma jirin cidii ku jirta warqadii furneed way ku dabawda dhinteen meel ma gaarin mana furneen mana xidhneen anu laakiin warqad furan ma diray video furan baan madaxweynaha u diray madaxweynaha Soomaaliland video furan baan u diray warqad furan Soomaaliland maqal video furan baa ka tiro علينا مدحونا Soomaaliland xaaladda dalku maanta ku jira aad bay u adagtay dhaqaalahan aad bay u adagtay wadagii weynaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hadduu joogana salaaniga gaarsiiyay haddii kalena video furan baan isna u diraya waxaan leeyahay madaxweyne malaa saaxiibad kala tagtay Muuse dee 30 wasaaradood iyo 40 hay'ad dawladeed oo guryo qaaliyan wad noo dhistay lacagtuna lama kala waayeen meel laga soo qaadayna lama garanin dawladana mushaarkeedu way bixinaysa dhaqaalaha isdhabayna ma jirin taas been baaheedo cididin haysateena ilaaheeda been u sheegtay waxa la yiri markaad nin wanaagsan tahay ha ka dambeeyo nin kale markaad nin xun tahay nin wanaagsan ha ka dambeeyo marka cidii ka dambeysay baa sheegtay wadanka inaad u soo dhurtay lacag dibad uga keentay wasaaradda u dhistay maanta wasaaradan ma naan dhisan karnaa aqaladeerada gobolka Waqooyi Galbeed daayir yaalana ka tagay baa lagu jiri lahaa darajada aad sameeyay ilaahay baa kugu hagaajiyay taasina waad qaadatay markaasi waxaan leenahay madaxweynaha arrinta dhaqaalaha ee dalku aad bay u adagtay dadkii wuxuu ku taagay halis dhaqaalahan bay taagan yihiin bariga hore dadku waxay jireen lacagtii siiday farriq jireebo Muuse xiray halkay taalo ku xiray kaabad meel lagama dhis lacagtu ama xirinteedu waa inay jirto oo la arko ama waa inay ummadda u soo gasho oo la arko wax xaraan la yiraahdo jirtay ma jirine haddii xalaal tahay maga la arki lahaa tiina ma jirto umulado maxay baris qaladkii ma ahayd abaar roob dadka ma helin abaar jeebo ayaa ku dhacday dadka wadanka bisaarad baa ka dhacday saxaafadu dadka ku dhex jirta dhagahooda weeye indhahooda weeye inta waan ku dhex jiraa waan dhagaynaa saddexdii dhadhaar buu ka dagay dharigii saaraay inda weyd sambiil lama gelin meel sariimada ayguna sursurti ka waay suuqii liblaah sidaas ka dhaba siqayad kayma madaxweyne inda weyd sambiil lama gelin meel sariimada saddexdii dhadhaar buu ka dagay dharigii saaraa waa loo habeen qadaa meesha haddii aad halkii aad ka tagtay dee waa loo habeen qadaa ummadda ila dhaqaale umaad furin rajo umaad abuurin wabad ka soo ooda mana jiro dhaqaale meel u yaalla anigu taa waan aaminsanahay mar hadday sidaa tahay adigu waxaad istiri ka xiray lacagtoo sidaa kugu aqbalaane wallaahi iyagoo sololanayo diirka soo fuulayaan meeshan haynugu dibinina ceeb ha qaadano yaan la odhan reerkii berigiis eryanaya baa ninkaa doortee codkii dadka ilaali oo sharaftii dadka ilaali oo yaan la odhanin reer hebel dib loo dooran maayo waagi dhawad bay ayay maxay ahayday isku kaadsan no war sidii awrkayaanaan dib u kaadsane madaxweyne waxaan ku leenahay xaaladda dalku way adag tahay dhaqaale ahaan bay u adag tahay inflation yani waxa weeye dhibaato qarax un baa harsan rajow aburi weyde beenu sheeg weyde beentaba waanu sololin jirnay 30 sanaan run ku nooleen maca beentii baana dahay waayo siyaasadda ayaanad waxba ka fahminoo dadka hirir rijaal loo abuuraa laakiin aad waabad soo ood marka waxaan leenahay madaxweyne war arrintaa dhaqaalaha dadku way adag tahay bil labaad bishaa saddexaad hadduu dadku saasii ahaado wallaahi deyrkaa la soo fulaya bilaahi deyrkaa la soo fuloo la kala tegaya taas waa ruwey cidana jaad noo qaad kuma laha cidana lacag baada kaama doonayso horeba umaad bixin jirin laakiin ummaddu ama waa ina lacagta u taal aragto oo aad haydo ugu abuurto ama waa inaad u soo saarto ha cunaane dadka wuxuu cunaa xaaraanba maaha innaga waxbaba inagama xaaraana innaga marka dee dadku malaha istirsadaa wax inaga xaaraan noqon doona laakiin maanta jeebkaaga ka qaado jeebka kale u dhib waar waa xalaala soo daa lacagta ummadda u soo daa arrintaa videogaa furayna madaxweynaha waxaan uga diganaa inuu ummadda u furo rajo u furo inuu ummadda dhaqaalahan waxaan la sheegay haddii kale uu yidhaha waxba ma hayo aniga Axmed Siiraaye abaal waxaan ugu haynaa lacagtuna suuqa way socotay baankana way taale dhulkana waa la dhisay muusana jeebna kuma hayno baanna kuma hayno dhisbana kuma hayno marka dee qabyaalad la isku taageeri maayo ummad baan mas'uul ka nahay saxaafad baan nahay culimaan nahay imaga waddanka annagaa ka sheekha waayo cidda mas-uuliyadda ummadda haysunba sheekha marka waxaan ku leenahay madaxweyne videogaa furan ha ku soo gaadho
xaaladda dalku halis bay ku sugan tahay wallaahi deyrkaa lagugu soo dhacay